kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda qatar oo si qarsoodi ah ugu yeedhay agaasimaha hay-adda nisa mahad salaad. wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelmacaan ee u dhexeeya degmooyinka jowhar iyo jalalaqsi oo uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab. dowladda maraykanka oo soo faragelisay go-aankii dowladda soomaaliya ay kasoo saartay in warbaahinta soomaaliya aysan qaadanin wararka al-shabaab. qodobadaas iyo qodobo kaloo xiisale ayaad ku daawan doontaan warka galka wararka. warka naga soo gaaraya deegaanka ceelmacaan ee u dhexeeya degmooyinka jowhar iyo jalalaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan ee shabeellaha dhexe islamarkaana saaran wadada laamiga ah ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal xoogan. dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda ee la magac baxay dib u xoreynta gobolka hiiraan iyo al-shabaab kadib markii ay al-shabaab weerareen deegaanka ceelmacaan oo shalay gelinkii dambe ay la wareegeen ciidamada macawisleyda. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka xoogiisa uu bilowday saaka waa berigii hore islamarkaana weli deegaanka laga maqlayo hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac. weli ma cadda khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray waxaana gebi ahaanba istaagay saaka isku socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga ee deegaanka ceelmacaan. wararka ka imaanaya magaalada dooxe caasimada dalkaasi qatarna waxa ay sheegayaan in halkaa ay ku wada sugan yihiin agaasimaha hay-adda nisa ee soomaaliya mahad maxamed salaad iyo agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin iyo xildhibaan cabdulaahi aadan kulale. ma cadda qorshaha rasmiga ah ee saddexda nin halkaasi isugu geysay oo ah 3 nin oo si aad ah u kala fog. weli si faahfaahsan looma hayo sababta saddexdooduba ku kulmisay qatar, balse xogaha hoose ayaa sheegaya in dowladda qatar ay u yeertay xubnahaasi. mahad salaad oo sabtidii xilli maqribkii ah diyaarad ka qaatay magaalada muqdisho ayaa 2 cisho ee lasoo dhaafay ku sugnaa hoteel ku yaala dooxa, iyadoo xogo hoose ay sheegayaan inay socdaan qorshayaal ay damacsan tahay dowladda qatar oo laisku fahamsiinayo raggan oo aada u kala foga. taliska nabad sugidda soomaaliya kama aysan hadlin safarka mahad salaad ee dooxa waxa uu daaran yahay, waxaase saraakiisha la shaqaysa mahad salaad ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegayaan in socdaal shaqo uu ugu baxay dalkaasi qatar. fahad yaasiin iyo mahad salaad ayaa iyagu dagaal wejiyo kala duwan ah u ka dhexeeyey, taas oo ugu weyneyd arrinka ikraan tahliil oo midba midka kale uu ku eedeynayay dilkeeda inuu wax ka oga. xildhibaan cabdulaahi aadan kulane oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya saaxiib dhowna la-ah fahad yaasiin marna qayb ka ahaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ka qayb ah xubnaha dowladda qatar ay ugu yeertay dalkeeda islamarkaana si dhab ah loo ogeyn waxaa looga wada hadlayo kulankaasi. sirdoonka dalka masar oo gacansaar dhowla leh agaasimaha hay-adda nisa ee soomaaliya mahad salaad ayaa sheegaya in iyagudhooda ay sheeda kala socdaan kulanka u dhexeeya fahad yaasiin iyo mahad salaad. dowladda maraykanka ayaa soo saartay qoraal fariina oo u dirayso dowladda soomaaliya iyo warbaahinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan kadib go-aan ay warbaahintu ka qaylisay oo dowladda kasoo baxay sabtidii toddobaadkan. madaxda ururada saxaafadda qaarkood oo muqdisho kulan kula yeeshay warbaahinta ayaa dowladda ku eedeeyey in ay caburinayso warbaahinta madaxa bannaan kadib go-aankii ay ku mamnuucday in laga qayb qaato baahinta wararka iyo fariimaha al-shabaab. safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo qoraal soo saartay ayaa dooda dowladda iyo ururada saxaafadda waxa ay ugu baaqday in la wada ilaaliyo xorriyadda hadalka lagana wada shaqeeyo ammaanka iyo danaha dalka. xuquuqda iyo waajibaadku waxa ay qeexayaan saxaafadda xorta ah waxa ay xaq u leedahay in ay soo bandhigto aragtiyo kala duwan ee mas-uuliyadda bixinta xogta saxda ah. waxaana ku dhiirigelinaynaa dowladda soomaaliya iyo warbaahinta soomaaliyeedba inay si wada jira ay uga shaqeeyaan horumarinta amniga oo ay ku jiraan badqabka suxufiyiinta iyo xorriyadda warbaahineed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee ku leedahay magaalada muqdisho. dood adag ayaa ka dhalatay sida ururada saxaafadda qaarkood ay uga falceliyeen go-aankii dowladda maadaama amarka dowladdu ay soo saartay uu toos ugu socday al-shabaab iyo taageerayaashooda, sidoo kalena ay xirtay fadhiyadii rasmiga ahaa ay ku faafin jireen fikradaha al-shabaab. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala oo warbaahinta la wadaagay go-aanka dowladda ayaa ku celceliyey in xorriyatul qowlka ay wax kasta oo xog saxan ah aysan diidaynin dowladda balse aan laga qayb qaadan karin faafinta wararka iyo dacaayadaha shabaab.
warkii galka wararka aad kala socoteen janalka galka wararka waa naga intaas.